ilaahayna wuu inoo naxariisanayaa hadda quraan baynu dhamaynay soddonkiiba waynu dhamaynay ilaahay nagu anfaco ilaahayna hay naga aqbalo waxaan runtii aad ugu faraxsanahay idinkoo maanta u fadhiya wacyigelintii aafadan ku soo kordhay adduunyada xanuunkan waxaanu odhan jirnay safmar waxa weeyaan aad u culus oo adduunyada aad iyo aad dhibaato weyn u geystay innaguna aan dadaalkayga kaga jirno inaan maaragtay wixii alla qadariyadu halkiisa tahay haddana aynu maarayno halista ugu badanna dadka wax haystaa waa dadka waaweyn haddayna aad u wacyigelinna dee dadkii waaweynaa waa la isku dul tegayaa waa la isdhunkanaya waa la qabsanaya qofkii waxaana gebigiisii wuxuu noqday waa taabashada iyo isku dhawaashaha wuxuu wax ku fidayaa dawo looma hayo laakiinse waxay noqotay la dagaalankiisii in isku imaatinada la kala ilaaliyo istaabashada isku dhawaashaha intaasaa dagaalka ugu badan dawadiisu noqday horta aad iyo aad baad mahadsantihiin haddaad hawshaa u fadhideen arrinta ugu muhiimsanna waxa weeye allabarina la dayn maayo waxaase lagu darayaa ururka waxaa laga cararaya waa urur si alle sidii ururkaa loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa wayna ka fikirno kolkaa kolley habkii aaska iyo waxoo dhanna ilaahay naguma keenay hadduu da yimaado nidaamka waa la soo dhaadhicinaya waa la soo gaadhsiin doonaa marka waxaynu isku boorinaynaa uun hawsha magaalada in culays badan la saaro oo wacyiga masaajidda aad ka wadaan shaqada ugu weyn la qabanaya maanta lagula dagaalama xanuunkani waa wacyigelintiina diinteenna islaamka ka koowa warbaahinta adduunyada maanta